hogaamiye noocee ah ayay Soomaaliya u baahan tahay. laga soo bilaabo 2000 Soomaaliya 4 sanaba waxaa lagu qabtaa doorashooyin meerta ahi. doorashooyinku waa fursad go'aan looga gaarayo mustaqbalka ummadda min xildhibaan matala ilaa iyo madaxweyne. iyadoo la og yahay in dawladda haatan waqtigeedu u dhammaaday shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee looga fadhiyay inay ka mid ahaayeen qabashada doorasho dadweyne iyo weliba dhammaystirka dastuurka, waxay ahayd howlihii ugu waaweynaa ee laga filayay dawladda tan iyo markii laga baxay kumeelgaarka. laakiin waa lagu hungoobay, waxaana sabab u ahaa la'aanta qorshe siyaasadeed iyo weliba howlgal ku dhisan si looga gungaaro himilooyinka dadweynaha. haddaba aan eegno marxalada dalka uu maanta uu marayo. 1. amniga. weerarada abaabulan ee argagixisada, dagaalka qabaa'ilka iyo weliba kuwa siyaasiga ahi waxay Soomaaliya ay ka dhigeen mid ka mid ahi goobaha khatarta ugu badan ee dunida. u adeegsiga ciidanka qaran, dana siyaasadeed iyo weliba in ka badan 5,000 oo askari oo tababar loogu qaaday Eritrea oo aan weli meel ay jaani cirib ay dhigeen la laayahay. 2. siyaasadda arrimaha gudaha. xiriirka madaxda dawlad goboleedyada iyo weliba dawladda federaalka waxa uu marayaa markii ugu xumaa isfaham la'aan hoggaanka ahi, waxaana sal u ah danaha gaarka ah iyo weliba burburinta nidaamka dadka Soomaaliyeed ay ku heshiyeen ee federaalka. 3. laanta ku dhaqanka dastuurka. ku takrifal awoodda dawladda sida isku daygii fashilma ee muddo kordhinta, dilkii Ikraan Tahliil, dhiibistii qalbi dhagax, weerarkii hotel Maa'ida ee madaxweynayaashii hore ee dalka iyo hadimooyin kale oo ka mid ah kuwa xusuusta taabanaya talada maamul ee hoggaankii 4 sano ee la soo dhaafay waa kuwa daboolka ka qaadaya heerka xadgudubka sharciga. 4. warbixin ay soo saartay hay'adda hufnaanta dunida ee la yiraahdo Transparency International ayaa waxay ku sheegtay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu musuqmaasuqa badan dunida, waxayna sabab uga dhigeen lacagaha dawladda oo sifo aan sharci ahayn loo isticmaalo, iyadoona uu hanti dhowrka dalkuna oo ku eedeeyay xafiisyada sare ee dawladda xisaab celin la'aan iyo weliba musuqmaasuq. 5. degnaan la'aan siyaasadda arrimaha dibadda. dhinaca diblomaasiyadda, Soomaaliya waa go'doon dalal badan oo nagala dhexeeyay xiriir soo jireen ahi ayaa xiriirka loo jaray, kuwa kalena waa laga gaabiyey, halka qaar kalena la sheego in saaxiibtinimo gaar ahi oo dhow ay leeyihiin maamulka talada dalka hadda haya darteedna loo soo dhowaystay. 6. doorasho dadweyne iyo dhammaystirka dastuurka. waxay ahayd howlihii ugu waaweynaa ee laga filayay dawladda tan iyo markii laga baxay kumeelgaarka, laakiin waa lagu hungoobay, waxaana sabab u ahaa la'aanta qorshe siyaasadeed iyo weliba howlgal ku dhisan si looga gungaaro himilooyinka dadweynaha. dhibaatooyinkan aan kor ku soo sheegay iyo kuwa kale waa caqabad dhab ahi oo ka horgudban dawladnimada Soomaaliya. doorashada socota waa fursad weyn oo dalka u horseedi karta hogaamiye marxaladan ku habboon oo leh khibrad si xal loogu helo dhibaatooyinka taagan. nin dadka meesha u jeedaan sida ay yihiin nin garanayo. kow in la helo hogaamiye dalkaanu ku soo dabaqo wax la yidhaahdo cadaaladda. uu ahayn keligiis taliye, xukun militari uma baahno. hogaamiye waxay u baahan tahay oo diini doonayo inuu kor u soo qaado dadkii tabaaleysray waxa weeyaan waddanka ku noolaay. hogaamiye diinta islaamka iyo shariicada islaamka u gamadinaya waddankan kala dambeyn iyo waxaa soo noqonaysa kalsoonida iyo dadka amni iyo ammaanna waa la helaa. wadaniyad ay ka muuqato wadaniyadda afka laga sheeganayo maya. hogaamiye waa inuu ahaado mid diinta yaqaano oo caadil ah oo afkaartiisa iyo dabeecaddiisa dadka maaragta wuxuu uu qodbaynayo ficiladu asal sameynaya ay diinta ay ku salaysanaadaan. shakhsi u naxayo dalka iyo dadka iyo waxa weeyaan diinta u naxayo in la helo. waxay u baahan tahay hogaamiye Ilaahay ka cabsanayo oo cadaalad yaqaano ay u baahan tahay. waddankan wuxuu u baahan yahay nin hogaami karo oo dalka danta iyo dadka isku wadi karo. haddaba waa kuma hogaamiyaha samata bixi kara Soomaaliya 4 sano ee soo socota. شريف أحمد ما هي من
nin lacag jecel ma ahayn. He was not. أنا برايم مينستر كها أنا قصده هي وانقرانية. He was not. ما ahayn nin noocaas. Number 1. Number 2. nin dad tafariisto oo qabyaalad karkariyana muusan ahayn. nin waqtahay nolol cajaa'ib ku soo koray oo si cajaa'ib ku soo baxay oo waxba kala isaga kala weynaa ma aragtay. He was a good listener ma garatay oo nin aad u dhageysta ayuu ahaa ma garatay. marka he was a good man. waxaa mudan madaxweynaheena hore ee Shariif sanadkan waxaan u malaynayaa nin Sheekh Shariif la yiraahdo ayay u eg tahay oo anigu waxaa saaxadda iminka inta ku jirta intaan ka aqaan ninka ugu sharafta badan runtii anigu waan la shaqeeyay isagana xataa berigii maxkamada waan la shaqeeyay caalamkanuna dee ninka ay maanta aad u aqbalsan yihiin nin dalkaa isku wadi kara aan cidna nacbayn qofkaasoo kaleana Soomaaliya u baahantay Shariif wax nacayb reer la yiraahdo horta ugu soo hagaagay Shariif uu imaanay gonobna xiriirka Shariif imaanay magac dawladeed muslim jirin laakiin waxa sameeyay wax la yiraahdo magac dawladeed u eg inkastoo sameeyay sababta bixin ama hor u socodsiin sameeyay magac federal uu keenay madaxweyne aan diyaaradda iga hormaraynin aan rabaa aniga oo aakiis inta qaata dhinaciisa ka difaacaya dalka Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee kumeel gaas ka soo saaray wadanka madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ninkaasoo kaleeta ayaa wadanka samatabci kara wardhiigley bila Soomaaliya hoosteeda iyadoo shabaab lagula dagaalama oo Sheekh Shariif yaa arka leeyahay batigaysaa isku suga ku yiri waaba loo asaa gurigiisa iska jiifa iyadoo la raadina aab loo tigi doonaa ninkaasuna waxaan aniga u gartaa inuu Sheekh Shariif ka bixin karo waxaa rabnaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed